haddii ugxaantaada daciif tahay ama burubiyood uu ku daashaday ee dhakhaatiirta mar walba niyada kaa soo disho ee burubiyood ayaa kugu yaalo ama PCOS lagu yiraahday garka ama shaarba tima kaaga soo baxeen dhammaan hilib degdegana ku saarmaayo ama cayil degdeg ah dhibaatadaas haddii aad ku dhib qabtid haddaba alaabtan samayso saddexda waqti maalintii cunto kasto kabacdi ayaad cabaysaa isbuuc gudihiisa isbeddel ayaad heli doontaa buradiioo kaa baaba'day burada ku dhacdo ugxaansidaha ama burada ku dhacda makaanka afkiisa dhammaan wuu kaa baabi'i doonaa haddii ilaahay subxaana watacaala xaggiisa tala la saaratid aad bismillaahi dhahdid saddexda waqti waa subaxdii hore markaad quraacad kadib koobkaas ayaad cabaysaa duhurkii kabacdina koobkaad cabaysaa qadada cashadana markaad cuntid kabacdi aad seexanaysana koobkaas ayaad cabaysaa waxaana cabaysaa muddo 40 maalmood isbeddel ayaad arki doontaa haddii ilaahay subxaanahu watacaala owlaad kugu siinayn owlaad saalixiina dayibiina ayaa allah subxaanahu watacaala kugu deeqayaa haddii aad hoos qaleel aad ka cabanayso ee qoyaankii dabiiciga ahaa ee ugxaanta lagu arkayay aad yacni aadan isku arkaynin mar walba ee hoostaada ay qalalan tahay ee cuncun uu ku haayo xataa maaragta hoosta dumarka ee cuncunka ku dhaco ama hoos qaleelka ku dhaco dumarka aad ayuu kaaga caawinayaa alaabtan muddo isbuucana isbeddel ayaad arki doontaa waana iisoo sheegi doontaa insha allah ilaahay subxaanahu watacaala ha idinka farxiyo dhammaan inta owlaad raadinaysa owlaad saalixiina dayibiina baariyin inta haysata allah u barakeeyo اللهم آمين بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا لي قالقا كسو دوادا جنال كليل اوفشيال هاتي اديكو عسبتهين سبسكرايب لكم انتشار هاتي اظهري الى جوكتين لكم انتشار دمانتين وحايد اللي هاي سو دوادا وليلو اوفشيال عمر والبا اذا كسو ديب دعدو ان ماشي سكوب بيا كوب كي لبات ايان كشبي كوب كي ستحاد ايان هادانو كشبي waxay noo yaalo 2 xabo liin dhanaan iyo jab sanjibiil ah sanjibiilkana waa suulkaaga oo kale ayaad qiyaasanaysaa ma ka cabanaysaa hoos qaleel ugxaantaada daciif ma lagu soo sheegay sidii raggii ma aragtay shaarbo iyo gar ma leedahay timo ma kaa soo baxaan dhibaato ma ku qabtaa burubiyood PCOS ma lagaa soo sheegaa haddaba alaabtan 40 maalmood si toos u isticmaal isbuuca ugu horeeyo waxaad arkaysaa caafimaad degdeg ah inuu ilaahay ku siiyay ugxaantii aad maaragta ka caban jirtay inuu eber ahaan jiray ama burubiyoodkii kugu yaali jiray degdeg ayuu kaaga ba'ayaa ugxaantaadana si degdeg ayuu kugu korayaa haddaba ka faa'iideyso waa daawo la hubo oo caafimaad lagu helayo insha allah cayilka degdega ah ama ma aragta dhibaatada neeftuurka ah ama timaha badan kaa soo baxayo ama ugxaantaada eberka dhigaya waxaa ka mid ah sokorta badan horta iska yaree marka hore biyo cad badso bariiska cad cun ukuntoo kale sida qudaarta cagaaran oo kale iyo sanjibiilkan iyo liin dhanaantan inaa cabtid isku day insha allah inaa naftaada ka warqabtid oo mar walba iska warqabtidna isku day ilaahay subxaanahu watacaalana wuu kaa farxin doonaa owlaadna ilaahay wuu kugu siin doonaa qoyaankii dabiiciga ahaa ee ugxaanta lagu dareemayayna waa heli doontaa insha allah isbuuca ugu horey markaa saas u isticmaashid dhakhtarkaa ku laabo isbeddel wuxuu ku dhihi doonaa maxaa soo isticmaasha cayilkii faraha badnaayna isbuuc wuu kaaga ba'ayaa waayo cayilka waxa keeno waa burubiyoodka ama PCOS-ka sidaa u taqaanidba intaas ma aragta haddii aad ka badbaatid caafimaadkaaga hay ayuu noqon doonaa ilaahayna xasan iyo xuseen ayuu ku sii doonaa insha allah soo dhawaada walaalayga qaaliga waa idin jecelahay meel kastoo dunida dacaladeeda ka joogtiin waxaa idin leeyahay waa laylo official oo mar walba idin dhahdo waa ka dabkiyaan saaray waana dhaqaysaa marka hore liinanaanta iyo sanjibiilka wuu noo soo karkaray markuu soo karkaro saddexdaada koobba maraad miiranaysaa miisaankana kor intaadan cabin alaabahan ka hor miisaanka markaa kortid kadib haddana markaa isbuuc cabtid miisaanka ku laabo miisaanka markaa ku laabatid isbeddel fara badan ayaad isku arki doontaa insha allah
إلهي سبحانه وتعالى قبلها أولاد رادنا أولاد صالحين طيبين انت هيست الله وبركة اللهم آمين إلى دعاء أنك هاي نقربين أو نبضي ونبركة يا ربي إلهي سبحانه وتعالى أنا أجري حسن الله نقصي وحول بؤون قبلهين ولا لهين aan maaragta ku saacideyno caafimaadkooda wixii dan ugu jiro waxaan idin leeyahay naftiina uroroonaada gabdhihii maaragta luuqa iiga soo cawaday yacni iiga soo sheegtay caado walwalka ama caado wareerka ama maaragtay inuu muddo badan ayagana ay waxaanta ebarka ahayd alaabtan aad oo idin anfacaya idinkana ku dadaala insha allah mar walbana waxaa idin dhihi lahaay waxyaabaha sokorta ku badan sida doolashaadka macmacaanka xalaawiyaadka iska joojiya insha allah kuna dadaala inaa maaragta naftiina u rooroonaatiin naftaada hataa u rooroonaatid oo qudaar fara badan cuntid oo filfishoo kale sanjibiilkoo kale dhagayarahoo kale sisintoo kale janalka gudaha loo galo janalka gudaha markaad u geshid bad waa janalkayga waxyaabo badan ee gabdho ilaahay subxaana watacaala mataano ku siiyey ilaahay subxaana watacaala caadadii ka maqneed ugu keenay ilaahay subxaana watacaala waxaantii daciifka ahayd ugu koreen ayaa ka buuxo gudaha u gala janalka kadibna fiirsada yacni janalka idinkoon fiirsanin ayaa wax walba isoo weydiinaysa fiideoga horta dhammayso fiirso dhagayso 40 maalmood ayaa la cabayaan ku dhahay 3 waqtiyaa maalintii la cabayaa wax walba af Soomaali ayaan idinkugu sheegaa walaalahayga qaaliga soo dhawaada dhibaatada idin haysato xanuunka idin hayna Allah idinka faydo ilaahayna idinka farxiyo dhammaantiin haddaba sanjibiilkan fitamiinaad fara badan leedanaanta sidoo kale fitamiin C ayaa ku jiro fitamiin C gana ma aragta dhiigga caadada si fiican ayuu u keenaa waxyaabaha dhibaatooyinka sida wuxuu ka baabi'inaa probiotika kale fitamiin C ga sanjibiilkana heer qabowga heer kul ayuu ku siinayaa saroona kugu qaadayaa waxyaabaha aad u baahan tahay sida kuleelka kale makaanka kale hadduu qabow yahay ma fiicna makaanka inuu kulul yahay fiican mar walbo inuu minka kulul yahay farjiga dumarka uu kulul yahay oo qoyaan leeyahay oo qoyaan dabiici uu leeyahay ayaa wanaagsan haddaba isku day inuu qoyaankaas dabiiciga mar walba ka imaado ilaahay subxaanahu watacaala caafimaad taama oo dhammaystiran allah idin wada siiyo gabdhayga qaaliga dhammaantiin ilaahay subxaanahu watacaala sida gabdho hore ay uga farxeen idinkana allah idinkaga farxiyo waqti yar haddaa idin helo waxaa idin soo duubayaa video yacni micnihiisa wato oo caafimaadkiisa ilaahay subxaanahu watacaala kugu daraayo idinkana inaad share garaysiin oo like garaysiin subscribe ka kor u qaatiin